marka waa magaalo aan aad u jeclahay oo aad aan u xiisayn jiray waa magaalada aan ku dhashay isbitaalkan guud oo Beledweyne ayaan ku dhashay waxay taariikhda idin siiyo hooyaday dhaqan Cabdulle waxay ahayd qofkii ugu horeeyay oo lagu qaaday ambulance-kii la keenay magaalada Beledweyne 1950kii markaan dhashay hooyaday aad u foolanaysay waa ay dhali weysay markaas soo yiri dhakhtarka Talyaaniga joogay ambulance-ka cusub oo timid ha lagu qaado hooyo waa lagu qaaday xoogaa waa lagu soo wadwaday markaasaan dhashay marka islaamihii hore oo hadda aan u maleynaa badi inay dhinteen Faaduma ima dhihi jirin waxay dhihi jireen balanso ayaa la yaqaanaa marka waxaan u maleynaa markaasay bacdeed inaan dhakhtarad noqon doono haddaan ambulance dhexdeeda ku dhashay dalka waxaan ka tagay 1965 waxaan tagay dalka Ruushka aan wax ku bartay anigoo horta yaraan tagay waxaan bartay afka Ruushka waxaan bartay nurse iyo umuliso kabacdi waxaan galay jaamacadda oo dhakhtarnimada jaamacadda markaan ka baxay waxaan aaday dalka Denmark oo aan ku noolahay ilaa maanta xagga waxaan bartay cilmiga cudurrada dhimirka ay waalida ka mid tahay kaas specialization ku sameeyay marka waxaan ka shaqeynahay sanooyin fara badan dalkaas 2008 markay ahaydna dhaqaatiir oo reer Somaliland oo saaxiibnahay ayaa waxay geeyeen magaalada Burco aan mashruuc ka bilownay aan ka furnay meel center oo cudurrada dhimirka maandhay halkaas aan 5 sano ka shaqeynay oo aan deganay Burco aan shaqo xoog la ka qabanay aniga dhaqaatiirta kale markii aan ka noqday Burco taas hadaan dhameeyo waxaan igu jirtay barnaamijka inaan shaqadii Burco aan ka bilownay oo kale inaan geeyno meel walba oo dad Soomaali ku hadla ay joogaan marka waxaa dhacday sanad ka hor dhalinyaro oo ka soo jeeda Hiiraan dhalinyaro reer Hiiraan oo Denmark degan ayaa ila soo xiriiray waxay dhaheen waxaan rabnaa in shaqo laga qabto isbitaalka guud ee Beledweyne oo ah isbitaalkii gobolka waliba wax loo qabto dadka dhimirka ka xanuunsanaa marka ma wada shaqeyn karnaa aniga isla markiiba haaya maxaa waxaan rabay dadka dhimirka ka xanuunsanaa inaan wax u qabto waxaan maqalnay kadib isbitaalka guud oo Hiiraan inuu aad iyo aad u dhibaataysan yahay inuu u baahan yahay wax walba oo ahaan kaliya cudurka dhimirka oo ah xagga hooyooyinka xagga caruurta nooc walba ay wax kasta uga baahan yihiin marka hadda waxaan bilaabaynaa inaan horta aan fiirino isbitaalka aan aragno maamulka aan la shirno dhaqaatiirta aan la shirno markaas aan baahida loo baahan yahay markaan aragno markii aan ku noqdo dalkii markaas laga sameeyo evaluation wax la dhaho oo ah maxaan qaban karnaa maxaa suurtoobo marka aniga Faaduma ahaan NGO iyo hay'ad iyo waxba ma wato Faadumaan ahay oo dhakhtarad ah oo cudurka dhimirka baratay oo oksido loo sameeyo maxay ahayd shaqooyinka noocaas laakiin waxa loo baahan yahay aniga say ila tahay dadka degan gobolka iyo dadka gobolka ka soo jeeda oo dibadda jiro inay u soo jeestaan isbitaalka oo gacmaha la isqabsado oo wixii loo aruurin kara loo aruuriyo markaas shaqada la qabto laakiin waxay ku xiran tahay aniga ma aha kiligay waxaan go'aan ku gaaraa waxaan la hadlaa dhaqaatiirta dadka isbitaalka ka shaqeeya maalin walba oo baahida og ayagay noqonaysaa inay naga caawinaan maxaa loo baahan yahay laakiin projectkayna waxa waaye iskaa wax u qabso dadkii ka soo jeeda gobolka oo dibadda jooga iyo kuwa dalka jooga inay is aruursadaan laakiin hadday dhacdo qof ku fiican in lacag laga doono ururada oo lacagta baxsho WHO ama UNICEF meelahaas taasna waa la sameyn karaa laakiin aniga waxaan la imid aqoontayda inaan iyo murqahayga inaan wax ugu taro isbitaalka urbajoogta waxaan jeclaan lahaa markii ay arkaan videogan hadda laga duubaa safarkan inay si fiican uga fikiraan magaaladoodii gobolkoodii oo aad u baahan yahay oo aad iyo aad loogu baahan yahay wax walba saan maqlay laakiin horta aan soo aragna isbitaalka markaasaan si fiican uga warrami karaa marka qurbajoogta waxaan jeclaan lahaa xataa
inaan ku soo wareego markaan ku noqdo Yurub inaan tago meelaha suurtooda ay ka mid tahay London oo reer Hiiraan badan ay degan yihiin ay tahay Mareykanka meel walba inaan tago oo dadkii la shiro oo aan kiciyo si maaragtay isbitaalka loogu soo jeesto wixii loo qaban karo loo qabto aniga ulajeedadayda waa cudurrada dhimirka laakiin taa kaliya kuma ekeyn waxaan ku egnahay waxaan u soo jeednaa dadkoo dhan oo baahan in wax loo qabto aniga sidaan u shaqeeyo xagga cudurrada dhimirka waxaa jira noocyo badanaa loo shaqeeyaa dad waxaa jira isbitaal weyn intay dhisaan dadka dhimirka ka xanuunsanaa ku xareeya halkaas ku daaweeyo aniga taas ma raacsani shaqada aan ka qabanay Burco waxay ahayd wax la dhaho community psychiatry waa shaqadii bulshada loo qabanayo oo ah dadka guryahooda lagu daaweynaa meelahay joogaan loogu tagaa waxaan tagi jirnay miyiga dadka geedaha ku xiran ayaan geedaha intaan ugu tagnaan daaweynaynan geedaha ka furaynay marka waxaan aaminsanahay xataa shaqooyinka ay Yurub ka soo qabtay inayna ka jaban tahay kana fiican tahay dadka inta meel lagu xareyn lahay in guryahooda lagu daaweeyo oo waalidkoodii iyo walaalahooda ayagoo dhex joogo iyo caruurtoodii rag badan oo xanuunsanaa caruurtoodii lagu daaweeyo meesha sayna familiga iyo qoyska uga soo dhex bixin taana way ka jaban tahay haddaa isbitaal dhistid waxaa loo baahan yahay shift wax galo subaxii soo galo galabtii soo galo habeenkii soo galo aad ay qaali u tahay lacagtaasna dalka ma taalo waxaa ka jaban oo xataa cilmi ahaan la og yahay inay ka fiican tahay waxa la dhaho community psychiatry dadka meesha joogaan lagu daaweeyo ama bukaan socodka wax la dhaho Burco waxaan sameeynay waxaan dhisnay bukaan jiif oo 15 sariira 5 naagaha iyo 10 ragga waa nagu filnayd naguma yareen adiga noocaas oo kale aan jeclaan lahay laakiin waxay noqonaysaa wax laga tashan doono oo lagala doodi doono dadka ka shaqeeya isbitaalka